بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا إسر فود ستايل. waxaa maanta karinayaa maxay ahayd cagaar kaas oo ka kooban laba kaabash oo kala duwan, kaabashka gaduudan, kaabashka greenka, barbanooni oo labada nooc, midka gaduudan iyo midka cagaarka ah, carrot, maxay ahayd bahasha kale oo la yiraahdo bocorka oo yelowga ah, celery, toon iyo kabsar caleen aan isku tumay. Allahu musta'aan. intaasaan ka samaynayaa iyo yaanyo oo yaanyadii micnaha ay inka horeysay hadda videogan aan duubayo xoogaa ay ka horeysay qaabkeedu oo dugsiga hadda iigu jirto oo ii karsamayso. marka yaanyadii iyo basashii iyo kulli waa kuwaana iyagoo isku karsamay, waa tanaa oo saan u shiilantay. marka waxaan rabaa insha allah inaan ku daraan rabaa la socod wanaagsan, inuu videoguna inku dheeraado ma doonayo oo igu badbato. marka insha allah la socod wanaagsan. hadda waxaan ku darayaa barbanoonigii, bocorkii, qofkii rabaa uu ku darsan karaa, qofkaan rabinna ma ku darsan karo. oo haddaad rabtid waa ka maarantaa micnihii. hadda waxaan ku darayaa kaarootadii. allahu musta'aan. intaas markaan isku qaso insha allah oo intaan cabaar isku karaan, waxa weeye kaabashkii oo ii diyaarsan baan ku darayaa. haddana waxaan ku darayaa selerigan ku darayaa, wakaasaa, iyo toontii iyo maxay ahayd kabsar caleentii isku tuman. insha allah. allahu musta'aan. haddana waxaan ku darayaa kaabashkii oo greenka. allahu musta'aan. wakaasaa. haddana waxaan ku darayaa midkii gaduudnaa, kaabashkii gaduudnaa. kaabashkan gaduudan waa maasha allah. alaabkaasoo la isku daray inaba caadi ma aha. wakaasaa marka waa la isku qasayaa. markaan isku qaso waa daboolayaa haddii ilaahay idmo. marka waxaa kaloo ii dhiman inaan ku daro hadda waan qasaynaa. marka wuu bislaanaya, wuu sii bislaanayaa. cuntadii halkida aheyd oo micnaha dadka u fiican, dadka waxay u fiican tahay diabeerka ah, dadka dhiigkarka qaba, qof kasta ay u fiican tahay. waxyaalada wadamadan waa ogtihiin ma jecla waxyaalaha la isku dardarayo oo micnaha sida kaabashka iyo cagaarka iyo waxa ay ku jiro ma ay jecla. waxyaalada oo wadamadan ku dhashay ama jooga wax walba way ka guraan raashinka marka la karinayo. marka laakiin anagu sidaana u samaystaa. waxa weeye haddana aan ku darayaa hadda waxaan ku darayaa cusbada oo ah fajiirada ah, oo tan ah, oo cusbada oo fajiirada ah oo ku jirta koombadaas, ku jirta fajiiro. xoogaa yaroo terminant ah waa haruud. terminant haddaad rabtid waa xoogaa yaroo haruud ah. xawaash buurbuur iyo xawaash dhuudhuub baan isku daray. xawaashkan kale oo mixidka ah oo aada u carafta badan oo micnaha dhaladaas ku jira, ujeediin. intaas ayaan hadda ku darayaa. marka waa cunto healthy ah insha allah. nala socda sila socod wanaagsan. waxaan kaloo ku darayaa maraqaas
oo baaquligaas ku jira oo ka sameeyay hilib ari marka maraq subag ma laha wixii oo dufanka kore oo subaga ah waa ka qaaday waa maraqi kaliya waxaan u rabaa marka cagaarka maadaama aan gooni u kariyay inuu maraqiisa ku darsado hilib ariga maraqiisa aan ku darsado hadhowna hilibka gees laga saarto oo hilibka kale arigana wuu ii karsan yahay marka laakiin maraqiisa aan ka soo shubtay wakaasa u jeedin marka wuxuu ka dhigayaa cuntada wuxuu ka dhigayaa macaan marka maraqa saas ugu dartid wax wanaagsan oo macaan ayay noqonaysaa oo islaadaha baashan hilib baa lagu kariyay macaankeeda marka hilibkan hadhow gees baa laga saarayaa waa lagu cunayaa qofkii raba qofkii aan rabinin wuxuu rabo ku cuni karaa waxay diidaysa malaha marka waa cunto healthy ah oo aad u wanaagsan oo dadka diabetes iyo dadka dhiigkarka qaba iyo dad kasta u fiican oo macnaha calooshiisana u fiican oo caloosh ku soconayso markaa cunto ma garateen muufa ku cuni kartaa rooti ku cuni kartaa canjeela ku cuni kartaa wax ay diidaysa malaha marka waa maasha Allah waa cunto aad u macaan iisina ah karinteeda marka isku soo noqonaynaa wax yar kadib daboolkan saarayaa insha Allah waatana cuntadii aan karinayay cagaarkii macnaha kaabashkii labada nooc ah oo aan karinayay waa kana asagoo bisil maasha Allah oo ready ah marka oo noo bislaaday oo aad u qurux badan maxay ahayd muufan hadda aniga saaray qof wuxuu rabo ku cuni karaa muufa ku cuni kartaa rooti baa ku cuni kartaa horaa u soo sheegay anjeela ku cuni kartaa wax ali waxa rabtida ku cuni kartaa laakiin waa cunto healthy ah dhalinyarada u fiican macnaha dadka oo singalada ah oo macnaha waa wax yar oo fudud ay karsan karaan weeye marka wax ay diidaysa mala wax kasta ku cuni kartaa waana healthy